mid ka mid ah tobankii jannada loogu bushaareeyey kii ugu khayrka badnaa nebiyada kadib ummadda wasiirkii koowaad ee rasuulka saaxiibkiisii iyo rafiiqiisii maalintii hijrada deeqsigii islaamka abubakar sidiiq radiallahu canhu إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا ليال waxaan ku jirnay دروستي سلسلة هاي كجاه ليني أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافة يو صاحب في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحن جوجني طلابوين بدن أو كلاسون نولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن سوق قادني إنه لسه هجرودي إنه مجالدي مدينة كأني يوحي هالكاسي دعوين كصومري وحن ما أنت حلقة دينا نهانيسا غزوات كي أو النبي قال لك عليه صلى الله عليه وسلم يوحي ودول لما دلق عليه وحوجه الريني دول لما كي النبي عليه الصلاة والسلام أو قاضي أهري غزوة بدر أو لوبحي غزوة الفرقان دقال كاسي أو بكر حاضري وحال يراهدا رسولك عليه الصلاة والسلام وحو أبو بكر إلهي يقول نعميي إنه الله حاضره جميع الغزوات أما جميع المشاهد أما جميع الوقائع أحداث تأردن من كما يتجين بالنا أبو بكر رضي الله عنه غزوة بدر وصنت كل بعض هاي وحكولها مواقف مهمة إيوه موقال أو كسر موقدي أو آد وقيمة بدنا waxaa soo gaadhay nabiga kaleey salaatu wasalaam in qaafiladii reer Makka ay badbaaday oo Abu Bakar aw Abu Sufyaan badbaadiyay oo wadadii lagu sugayay maahayna wada kala martay waxa kale oo ognay reer Quraysheed inay u soo xarka xidheen dagaalka iyaga oo marka hore lahaa waxa badbaadinayna qaafiladayada markii dambana ay noqotay inay ku dhiiradaan inay dagaalka galaan oo ay la kulmaan nabiga kaleey salaatu wasalaam hadalladii ugu muhiimsanaa waxa kamid ahaa Abu Jahl hadalkiisii oo yiri waa inaan biyaha badar tagnaa waa aan halka ku soo qabanaa xaflado heesa khamrigana ku soo cabno carabtuna nagu sheekaysato inaan jabinay jeeshkii Muhammad waa laga isku dayay in laga maareeyo arrinkaas laakiin way noqon weyday sidaas uu dagaalkii ku soo xarka xidhay rasuulkuna kaleey salaatu wasalaam wuxuu kala tashaday asxaabta dagaalka inay sii wadaan iyo inaanay sii wadin maadaama oo qaafiladii ay doonayeen ay meesha ka baxday وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم بالليل waxaad jecelaydeen ilaahay markuu ku ballan qaaday labada idinkuna aad jecelaydeen ta dhibaatada yar leh oo ahayd tii qaafilada ku saabsanayd ahayd laakiin tii noqon weyday waxay noqotay inuu rasuulku asxaabtii la tashado haddii ay ahaayeen muhaajiriin iyo haddii ay ahaayeen ansaar dadkii hadallada fiican meesha ka yiri waxa kamid ahaa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxa kamid ahaa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Abu Bakr Siddiq hadal fiican meesha uu ka yiri waxa u raacsanaa geesinimadiisa oo meeshaasi aad uga soo muuqatay maalinka markii fooda la isdaray ee dagaalka la isku guda galay Abu Bakr radiyallahu an inankiisi Abdurrahman ayaa dagaalka ku jiray arin adag bay ahayd Abdurrahman wuxuu dib uga waramay uu ku yiri aabow maalintii waan iskaga kaleexanayay oo ishaadan iska eegayay wuxuu yiri markasta oo wuxuu yiri ida dhaharta amami markasta diga soo horbaxdo yawm badr familtu anka walam aqtulka wuxuu yiri Abu Bakr radiyallahu an may buu anigu haddaad iga soo horbaxdid oo aad igu isoo beegsato kaama leexdeen buu anigu haddaad isoo beegsato
kaama leexdeen buu yidhi anigu abubakar halkaa waxaa ka muuqatay geesinimo yaa badan inuu arrinkaasi waxba ka soo qaadin ina aladiina yuxaaduuna allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aslanba dadkii mushrikiinta ahaa ee halkaa ka dagaalamayey saxaabadii iska hor yimaadeen walaa aabbo walaa hooyo umay aabba yeelaynin midna mid uma aabba yeelaynin waxaa laga raacay inaa la dagaalamo oo dagaal xoog ah lagu qaado abubakar radia allaahu canh wuxuu xaadiray dagaallo fara badan dagaalkaas waxaa ka mid ahaa dagaallada dagaalkii uxud baa ka mid ahaa haddii aan qasawaadkiisii oo dhan soo koobno dagaalka uxud wuxuu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam calaamad aad u yaab badan abubakar meesha uga muuqatay qisadaana rasuulka ku dhacdayna waxay ahayd in dagaalkaasi maalinkaa la shaaciyey oo la muujiyey inaa rasuulkii la dilay sala allahu calayhi wasalam markaasuu abubakar safafka soo jeeray oo safafka soo dhex jeexay ilaa uu soo gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagii oo arrintaa maalinkaasi ay rag badan oo abubakar ka mid yahay oo abu cubayda caamir ibnu jaraax ka mid yahay iyo cali ibnu abi daalib ka mid yahay ay rasuulka ku meerteen maalinkaa oo isku xeereen oo ay badbaadadiisa qayb weyn ka qaateen abubakar wuxuu ka qayb galay dagaalkii banu nadiir wuxuu ka qayb galay qaswadii bani mustaliq ee dagaaladii ugu cuscuslaa oo dhan oo rasuulka lagaga hor yimiday markaasuu calanka muhaajiriinta qaadayey markaasa rasuulkuna ku maamuusayey xataa sulxulxudaybiya maalinkii uu joogay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhiibay calankii markii ay dhammaadeen sulxulxudaybiya dhammaatay ee ay reer quraysheedna ballantii buriyeen waa kii abu sufyaan la soo diray abu sufyaan magaaladii madiinuu yimiday saxaabadii oo dhan buu isku maray isagoo oo rajaynaya inuu rasuulka ka jidiidiyo ballantii ay reer quraysheed buriyeen waxay ku buriyeenna ay ahayd dagaalkii reer bani bakriya reer bani khusaaca ay ahayd arrintaasi abubakar radia allaahu canhu markii dambe abu sufyaan u yimiday wuxuu ka dalbaday inuu rasuulka kala hadlo wuxuu yidhi rasuulku waxa uu wuxuu rasuulku magangeli waayey anigu ma magangelinayo rasuulkuna waa kii diiday sala allahu calayhi wasalam wuxuu xataa abubakar yidhi haddii ay abu sufyaanow cid wal oo rasuulku la dagaalamo anigu waan la dagaalamayaa cid kasta oo rasuulku soo dhoweeyana aw magangeliyana anigu waan magangelinayaa arrinkaaguna sidaas buu iga yahay abubakar wuxuu qaatay dagaalkii tabuuk buu ka qayb galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaado badan buu doortay abubakarna wuxuu u dhiibay calankii u muhiimsanaa ee isaga safkiisa ahaa abubakar waxaa la yidhaahdaa maalinka tabuuk raggii xoolaha badan keenay rag badan baa xoolo badan keenay oo xoolo haystay cumar ibnu lkhadaab maalintaa wuxuu yidhi anigoo xoolo haysta ayay ku soo beegantay xoolihii baan markaa ku faraxsanaa markaasaan inaan abubakar la tartamo niyadda geliyey laakiin markuu rasuulku yidhi abubakar maxaad uga timiday reerkaagii iyo ciyaalkii ee uu yidhi waxba ugama iman ilaahay iyo rasuulkiisaan uga imiday ayaan iskaga hadhay buuhi haddee toole waxaanan ku tashaday buu yidhi inaanan la tirtamin abubakar oo arrin khayra kula tirtamin isagoo oo halkaasi cumar radia allaahu canhu xoolihiisa soo qaaday nuskood isagoo oo kuna soo beegantay maalintaasi inuu xoolo haystay oo uu noloshiisa iyo xaalkiisu uu tartiibsanaa ee ku xigay waxaa abubakar radia allaahu canhu ku xigay dagaaladaasi markuu door weyn ka soo qaatay inuu rasuulku bukooday sala allahu calayhi wasalam rasuulka bukaantiisii iyo xaaladiisii abubakar door fiican buu ku lahaa waxaa la yidhaahdaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkii 11 ee hijrada wuxuu diyaariyey askar fara badan oo jeyshka ugu muhiimsan ee ahaa jeyshkii usaame ee falastiin loo dirayay usaame ibnu sayd oo falastiin loo dirayay si loola dagaalamo reer ruum laakiin arrinkaasi horey buu u fuli waayey ilaa rasuulka xanuunkii ku adkaaday oo rasuulka kolba lamaan doorinayay
أو مير دبول ماي أو أي مدبّدن أركاسي سداس بو كهب سامي بالله رهبا دجال كاسي أو جيش كاسي وفري واي أبو بكر رضي الله عنه آت أيو أركاسي وقع علي رسولك حنون كيسا دور فوين بوكا موجي وحاكم إذا رسولك أو يلي مالين كاسي يسقوا الله هذا الآية ضدك أو خد بدينا آية إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده إلهي الضوم بو دور سيي الدنيا إلهي أكتسا فاختار ذلك العبد ما عند الله عبد أنا وحو دورتي ما عند الله أبو بكر مالين كأو ويبا ليريات isagoo oo fahmay abdigan oo u jeedo nabiga kaleey salaatu wasalaam halkaasi doorka Abu Bakar ee ka soo muuqda xanuunka nabiga kaleey salaatu wasalaam waa ballaaran yahay halkaas aan ku joojinayna ilaahay nawaa